toddobaadkan waxaa noogu martiyaa madaxweynaha maamulka khaatimo cali khaliif galeed waxagaaga cali aad iyo aad ayaan kaaga mahadnaqaynaa sida aad nooga ajiibtay waraysigaagan waxagaag waxaan kula cali khaliif amba professor madaxweyne bal hadda waxaad ka warantaa hargeysa muddo ayaa kuugu dambeysay inkastoo waa dhowto 2 jeer timi bal hadda markaad eegto dhaqan dhaqaale amba wax markii adiga kuugu dambeysay waqti badan maad ka maqnayday bal sidee baad u qiyaasi kartaa maxaad si maanta ku qiyaasi kartaa bismillaahi raxmaani raxiim faysal adiga iyo qolyaheena universal iyo daawadayaashiinaba waa salaamayaa waa run hargeysa waxaa iigu dambeysay December 1999 waagaana telefoonno somtal iyo howlahaasaan ku jiray aniga iyo ninka dahabshiil la yidhaahaa iyo cabdiraxmaan boore waagaa waxaa ii xigtay mar aad ugu 82 baa ii xigtay marka anaan arag muddadaas 12 sano 17 sano yaan 97 shaanoo Dubai degan aan dhowr jeer imimi markan ugu dambeysay haddana waa 99 baa iigu dambeysay intii hadda aan imi magaalada ma wada aanan fursad ma helin inaan ku soo wareego laakiin laba waxba waa ku arkay magaalada aad bay u kortay aad bay u dhisantay xagga dhismaha guryaha iyo xafiisyada iyo kulley halka kan 100 jira soo dhaafnay hadda xaggaana waxaan u malaynayaa inayba naasahabloodii ka dhowdahay xaggaana airportkay u dhaaftay marka magaaladii waa kortay aadna waa u dhisantay kulley baabuurta iyo gaadiidka joogaana mid aad iyo aad uga ballaaran wixii hore aan ka jiray marka waxa muuqata horumar badan oo xagga dhaqaalaha ah inuu jiro dawlad hanti wadaagay meesha ma joogto waxaan u malaynayaa waxaasoo dhanna waxaa iska leh dadka shacabka dhistay ama wadanka gudihiisa haba joogeen ama dadka dibadaha ku nool qurba joogta ha noqdeen marka arinta iigu aan runtii aan ku bogaadinayaa dadka waa horumarka ay gaadheen haddaan nabad iyo xasilooni jirinna cidina meeshan waxba ma gashateen marka nabadda iyo xasiloonidaas yaa u sababa inay magaaladan u kortay dadkii ku nool laana aad iyo aad u batay waxaa jirta bal waxa aad nooga warantaa kole warbixin naga siisaa wada hadaladii halka ay marayaan ilaa hadda wada hadaladan Somaliland aan la galay waa wada hadallo annaku aan u aragnay dantayada inay tahay hadaan khaatumanahay Somaliland maamulka Somaliland oo arkay inay dan ugu jirto muqdisho iyo annaka waxa isku ka toos u ka xidhaya oo badanina ma uu jiro wax badan oo la isku diidan yahay oo siyaasi waa jira laakiin waxa ka badan waxa la isu yahay iyo waxa la wada qabsan karo yaa ka badan ninka odayga ah madaxweynaha ana Axmed Maxamuud Siilaanyana waa nin aan saaxiibna ahayn xukuumadii Maxamed Siyaad Barre militarigana iyo ka horba dawladda civilianka ahayd waxaan u malaynayaa Axmed dalka Ingiriiska inuu ka soo noqday 1964 oo shaqada dawladda bilaabay aniguna Mareykan baan ka soo noqday 1965 marka muddadaas 4 sano ah ama isaga 5 sano ah maamulka markaa jiray iyo habkii hore ee civilianka dawladdii rayidka ahayd anoo labadayadaba ka shaqeynay inaanu isnaqaano iskuulada habay ugu horeeyay iskumaana soo gaadhin laakiin inaanu anigu iqiinay buu ahaa oo kulley waxaan noo dhaxay 5-6 sano iskuulka marka waanu wada shaqeynay waana isbaranay waana ninaan kalsooni badan runtii ku qabo anigu Cali ahaan markii dambana waqtigii Maxamed Siyaad Barrana xukuumadii baanu ka wada mid noqonay markaanu aragnay dagaalkii 77 ka bacdi oo xiriirkii la lahaa Ruushka iyo dalalka hanta wadaagu meesha uu ka baxay ee ay noqotay meesha qure hadda harsan ee dhinaca la saari karaa waa dalalka khaliijka iyo adduunka reer galbeedka labadayaduba reer galbeed baana lagu tirinay inaan waxna ku soo baranay
calaa ayi xaal yaanan taa ku dheeraane wadahadaladii haddaynu ku soo noqono xaggay maxmaraya wadahadaladeenii marayaan waxay marayaan labadayaduba dantayadaanu u aragnay inay tahay waxay marayaan oo shalay ugu dambeysay heshiisyaanu kala saxeexanay waxaanu malaynaya ilaa 10 qodoba wadahadaladaas waxay ku bilaabmeen Addis Ababa waxaanu isla soo maray Djibouti waxaa hadda ugu dambeysay 2 jeer oo aanu Hargeysa ku kulannay meesha hadda ay marayaan weli arrimaha culculus ee masiiriga ah weli kama aanan heshin waxaanu ka heshiinay oo labadayaduba aanu aragnaa in ay bilow fiican tahay nabad hadda dagaal ka socda Khaatumo iyo Somaliland ciidamadooda u dhaxeeyana ma uu jiro dhulkiina waa loo kala socdaa aniga laftayda yaa hadda 2-3 jeer Buuhoodle intaan ka soo baxay ama airportkan ka dhoofay ama wadahadaladaaba u imi waa run bilow fiican baa noo muuqda dadkeena waa isbarteen gudiye hadda sanad iyo saayid wada shaqeynayana waa jiraan haddana waa ballansanahay in dhakhso la isu arko laakiin arrimo culculus yaanan weli aanan bataaban bilow fiicanse waa noo tahay waxa aan xusi lahaa heshiiskan labadayadu waxaanu heshiiskan qodobo cusub oo heshiiskan ku soo qaadatay naam qodobada waxaa kamid ah shirkii Addis Ababa iyo kuwii Djibouti ba waxaanu istusnay inta wada hadalladu noo socdaan ciddii naga carqaladaynaysa ciddaanu markaa u jeednaana waa Puntland iyo dowladda dhexe inaanu meel uga soo wada jeesano si qayaxan bayna hadda faragelin uga hayaan dalkan Soomaaliya Sanaag iyo Cayn khaasatan magaalada Buuhoodle waxaa markaa heshiiska iyaga kamid ahaa kow inaanu arintaa ka wada shaqeyno meel la uga soo wada jeesano airportka Buuhoodlana oo ciddii xamar ka imanaysa isagay ka degaysaa waxaan u malaynayaa qolyahan Puntland iyo ku dhulkay soo maraan oo Khaatumo ma soo dhex maraan laakiin waxay ka soo wareegaan xagga iyo Ethiopia Gambarey iyo xagga Kilinka ee soo maraan oo xaggaasi ka soo galaan waxaan u malaynayaa fasax waxay warsadaan qunsuliyadda Garowe joogta marka waxa cusub ee meesha ku yaala waa kow eedayn aanu ku wada eedaynay dowladda dhexe ee xamar iyo Puntland fadqalalada ay wadaan iyo xasilooni la'aanta ay ka wadaan Soomaaliya Sanaag iyo Cayn si qayaxana waa u wada tilmaanay waa isla ogolaanay inaanu meel uga soo wada jeesano wax laala wixii wada hadaladana diidan airportka Buuhoodlana wixii aanu u aragnay inay fadqalalo wadaan wixii ganacsi iyo horumarka dalka dib ma leh yaa nabad ku imanaya nabad ku joogay laakiin wax laala wixii wada hadaladana ka soo horjeeda siyaasiyiin baa u jeedaa siyaasi waxaan u jeednaa qolyo faragelin nagu haya oo iyagoo xamar jooga iyo Puntland iska kaashadeen ay rabaan waxa danta iyadu nahay anagu fasax uga qaadan mayno Garowe iyo xamar midna waxa danta iyadu nahay annaka amaanadana loo dhiibay maamulka Soomaaliya Sanaag iyo Cayn waxaan malaynayaa Somaliland mandate-ka way ka haystaan shacabka dhulkan inaan wada hadallo inaan isla abaaro hab aanu maamul aan wada leenahay wahagaag dhowr wada hadalla dhowr jeer baa la qabtay iminka oo tiinana qaar kale ka sii dambeeyo aad doonaysaa marka ma isleedahay bari dhowto waa tii dhowr jeer farsamo ahaan dib u dhacay marka kuwa mustaqbalka ma ka taxadirteen si aanay wada hadalladu si shinkooda u qaataan inaanay dib u dhiceen mar dambe oo aan matalan dhinaca farsamiyo arrimaha ma ka wada hadashay Faysal waa ka wada hadalay guddi farsamaaba oo labada dhinaca noo jirta wada hadalladaas siyaalaha ay u dhaceen kulay haday aanu annaga xagga iyaga wax dib u dhaco ka yimi hadaan Khaatumana ma ay jirto mar walba dib u dhaco xaggan Somaliland iyo ka imanayeen ama ha noqdeen arintii abaaraha iyo xanuunkii shuban biyuudkii ama ha noqdeen ruuxaantii imanka diiwaan gelintii dadkii vote-ka doorashooyinka waxa ka qayb gali lahaa intaas waa keeneen arrimo kale oo mas'uuliyiinta guddida nagula jirto dhoofkooda iyo kala maqnaashoodana sabab oo u ahayd haddana mid kaba culus baa muuqata hadda bishii August baynu ku jiraa 28keedii doorashaduna waxay dhacaysaa 13 November
waxaanu haysanaa waa 2 bilood wax 3 bilood ka yar waxaan anigu isleeyahay 2 wiiga ugu horeeya September ama ilaa September fursadii way jirtaa aanu wada hadalladayada ku wadanayno laakiin wixii waqtiga ka dambeeya waxay aniga igu muuqataa bisha October in ay hawshii mudnaanta ilahaan lahayd inay ka soo soko marayso mudnaanta doorashooyinkan iyo ololahan iyo campaignkan xisbiyadu ku jiraan oo guddiga de waxa nagula jira dad ururada kamid oo madaxweyne u taagan hadda Faysal Ali Waraabo oo kale madaxweyne u tartamay dhinaca kale ma ka eegteen mas'ala xukuumadda loo kale iminka yar baa waxa dhacay wada hadallada la galaysaan qudheeda qorshayaasha ma ku darteen annaku kulley wixii marba annaga dhigayaga ee diyaara iyuun baanu annaku wada hadallada la wadaynaa waa jecelahay runtii aad iyo aad baan u jeclaan lahaa inta Axmed Maxamed Maxamuud uu joogo in haddaanba wada hadalladan la soo afjeer karaynin in aasaas adag oo culus la dhigo oo ninkaasu in badan buu ku taamayay lahaa waxaan rabaa dhaxal aan uga tago dadkayga intii maamulkiisa uu madaxda ka ahaa dagaalada ugu xunxun ee dhexmara Somaliland iyo Khaatumo yaa ama dalka Soomaaliya sanaag iyo ummadda ku nool yaa muddadiisii oo ina Riyaale iyo Maxamed Ibrahim Cigaal iyo Cabdiraxmaan Tuurba haddii la isku daro dhimashadii iyo dagaalkii dhexmaray inta maamulkan uu jiro waana midaan wada ogsoonahay waana miduu runtii meelo badan kaga dhawaaqay annagana nagu yiri laakiin inuu xitaa saxaafadda international community-ga uu waxay igu muuqataa marax waxaan inay markaa ka dhab yihiin waana nin oday oo mas'uul ah oo runtii taariikhda Soomaaliya kaad waxaad jeceshahay intuu Axmed joogo arrintu ay dhawaato taariikhda halka ka galo ayaa jeceshahay hadday dhammaan weyd ayaasan jeclaan lahaa hadday dhammaan weydana oo ayba si alla u dhacdo inaanu dhammayn kari weynana in asaas foundation ama asaas adag aan u dhigno si inta uu mudan yahay aan ay u suurtoobaan in waxaaga dad badan oo matalan deegaankan ka soo jeeday buu hodliyo eriyada iyo madax markii hore Khaatumo kula joogtayba imaka heshiiskan way ka soo horjeedaan sababtu waa maxay sababtu dadku isku si uma wada fikirayaan Faysal oo siyaasadda nimba qofba meel buu ka arkaa ama group ama kooxiba siyaalay wax isugu tilmaantaa dadna la bilaabay arrinta tan oo runtii mudan in la xuso oo G6 bilowgii horeba iyo G11 mar dambaanu noqonay intaba kamid ahaa oo ilaa wada hadalladii ugu dambeeyay Addis Ababa ka qayb galaa jira haddana markay iyaku isfiiriyeen waxay u arkeen dantooda inay xamar taalo iyagaasaa ku xisaabtamay inay markaa wada hadalladan Somaliland la leeyahay ay noqonayso wada hadalla ishortaagaya soo dhaweeyntay ka filayaan xamar in laga soo dhaweeyo hawlo badan oo iyaka waa hadda tooda dantooda gaarka u ah ayaa wuxuu arkeen inay xamar ay tahay waxaanu ku kala tagnayna waa arrintaas waa dadka hore ee Khaatumo budhagayaasheedii kamid ahaa dad kale oo sidoodaba aaminsan Puntland oo qaba waxaan u malaynayaa shirkii ugu horeeyay Burco lagu qabtay 1991 dad ka tirsan dadka Soomaaliya sanaag oo culus baana ka qayb galay kii Booramana waa ka qayb galeen maamulkana garaadada ku jiray garaadad markaa laba garaad markaa midhay 3 garaad baaba jiray garaad Ismaaciil ducada wuxuu ku maqnaa Nairobi iyo xagga laakiin garaad Cabdiqani garaad Shaama iyo garaad Saleebaan garaad Maxamed labadaas shirka waa joogeen rag fiican oo shaqaalihii dawladda ahaan jiray baayac mushtar waxaan u malaynayaa shir dad ahaan dadka Soomaaliya sanaag ay ka qayb galeen oo ka dadka meesha maraya ay ka miisaan weynaan ma ayan jirin marka kulley waxay shirka lagu soo talagalay wadanka in la kala gooyana ma ahayn mana ay qaadan haddana in badan oo muhiim oo kamid ahayd ragga in Somaliland ay go'do wixii samaysato waa ogolaayeen haddana waxyaalihii lagu xishiyay khalkhal baa galay kulley qolyaha reer Soomaaliya sanaag iyo cayn waxay u arkaan wixii laga balballamay
ee shirka Burco iyo kii Boorama lagaga ballamay inay hirgeli waayeen sida awgeed iyo 1998 haddana madaxdii Sir Sooliyo Sanaagiya Cayn ay abaartay Puntland haddayan iyo ku Puntland teginna Puntland wax la yiraahdo maamulo dhismi lahaa ma uu jiro laano iyaka muddadaas ilaa 1990 ilaa 98 iyaga isku mari waayeen maamul inay dhistaan taana dadku waa ku hungoobeen sida awgeed bay 2012 January dadka reer Sooliyo Sanaag shirka ugu weyn ee dhulka taariikhiyan ba ka dhacay yaa la isugu yimi markaa weeye markay go'aansadeen inay maamulkooda dhistaan laakiin xidhiidh wanaagsan iyo daris wanaag iyo danaha in la isla raadsado yaaba dastuurkoodana ku taal Somaliland iyo Puntland labadaba inay xidhiidh fiican la yeeshaan laakiin marka maamulka la dhisayna waxay ahayd inuu mar walba noqdo meeshu ku hiranaya xamar iyo midnimo Soomaaliyeed wayahay madaxweyne Cali Khaliif oo waxa ka tirsatay maamulka Khaatumo in badanna way arag waad u tahay sida xamar iyo aad u sheegtay Puntland intaba laakiin bal dad badan oo ina daawanaya maxaad u sheegi lahayd sababaha ay u diidayaan heshiis dadka deegaanka ay wada qaataan waxaan u maleynayaa saddex sababoodba waa sheegi karaa ragga ugu magac dheer ee Khaatumo wax ka dhisay wataan ku sheego dana ay iyo ku leeyihiin afraad iyo ko ah yaa xamar ay wali ugu xidhan yihiin laba waxa jira dad iyana Puntland u daacada oo raba dad badan ma aha laakiin de madaxweyne ku xigaa jira golaha wasaaraha ku jiraan ka baarlamaanka ku jiraan dana badan oo siyaasadeed iyo dhaqaalaba waa ku haystaan qolyahaasuna marnaba ma ogola wada hadalka Soomaaliland waxa jira dad ogol ama raba in Soomaaliland la wada hadlo laakiin leh annaga Soomaaliland cid noo dhaxaynaysa ma jirto annaga toos ula hadlayna oo qabaa'ila hadda ma aha xisbi iyo koox waddanko dhana laakiin marba group ama marba koox meeshay doonayaan magaaladay doonayaan iyo area doonayaan ku abtirsadeen kuwaasuna waa jiraan hadda Soomaaliland iyo kuma diidana laakiin waxay diidan yihiin Khaatumo oo masisha marka intaas waa is wada biirsadeen hadda ma sheegi karo statistics ama tirakoob sidee bay kala yihiin laakiin waxaan ogahay mana aha inaan u leeyahay laano ana Khaatumo madaxweyne oo siyaasadan ku hogaaminaya wada hadalka ana waxaan qabaa dadka majority-giis dadka dhulka ku nool dadka majority-giis haddii afti laga qaado inay wada hadalkaasi u dhaweynayaan oo xamarna ay quus hadda ka yihiin Puntlandna waxa laala waxay u haysaa inuusan jirin iyada ku wiirsan mayno laakiin iyadaaba hadda walwal badan laga qaba inayba sii jiri doonto marka inta diidan waxa ka badan oo aad iyo aad uga badan inta rabta in la wada hadlo oo annagana nagu dhiiri gelinaysa naguna taageeraya inaan wada hadallada wadna kana gungaadno xusuusnahay nin waliyaha iyaga reer Khaatumo oo maalin meelan ka hadlayay yaa waxa la sheegay ninka waagaas 65 uu shaqo bilaabay oo waa ka markaas wareedhe maxaad noo hortaagan tahay haddaad intaas aad waxaan ku soo jirtay maan aan ku ducaynay anigu ninka warkiisa maalinta waxaan ku yiri de anigu ana kasbaday wixii aan qabtay adigu haddaad rabto inaad wax qabatid oo ku soo baxdid de lagu caana shubi maayo orod dhulkii aad marka Mareykan baan joognaa laakiin waa qodob aniguna aan dareensanahay wixii hadda ka dambeeyana waxaan u maleynayaa ceeb baa laga gaaray way cali ay kula kaftay dadka qaar waxay lahaa professorku waxay lahaa aad buu adag yahay waayo waagii dhaxay matalan Khaatumo oo kaliya matalan leeyahay jiray waxay lahayd uu jabhadeelayo dal professor oo Mareykanka iyo sida uu yibi yaani aragtida waxaad ma waa jabhadeey hadda haddii uu kalifto wada hadalladan ay shaqayn waayaan option kale aan leenahay markaan waa jabhadeynaya markaan shabad baan noqonaya ilaa kulli xitaa haddaanan anigu madax ka ahayn dadkanu inay helaan xuquuqda ay leeyihiin waa arrin aan aaminsanahay waxaan iyaga gaar ugu rabana maahe Soomaaliland aan jeclahay inaan ka howlgalo oo runtii inta u dhiman in badanna waa u dhiman tahay sida habka ay u dhisan tahay hab dastuur waa yaala
waana akhriyay isagoo af ingiriisi iyo isagoo af soomaaliyaba dastuurka waxaa iyo shuruucda taalla hab lagu fulinayo oo lama taabtaanihi inay jiraan waxa ugu weyn oo runtii aan anagu aragnaa institutionska jiray hay-adahan dowliga dastuuriga ah dhismahooda yaa u baahan dib in loogu noqdo oo aan jecelahay in dib loo hadda ma aha awood qaybsi aan odhanayno haddaanu reer Sool iyo Sanaag nahay waa inaan intaa yeelanaa war waxaan dhismahooda marka horeba in laga heshiiyo arrimahaasa Faysalow jira arrimahaana annaka iyo guddiyadeedan wada hadlaya wallaanan xitaa salaamu calaykum inaan wali uga wada hadlin arrimahaasuna waqtina waa qaadanayaan aqoon iyo tanaasul iyo dan aan wada leenahay xerada aynu rabno inaynu ku wada jiro dee waa inay noqotaa xero xoolaha iyo dadkuba ay ku noolaan karaan oo haddii bahala ku nool yihiin oo abrisyo ku nool yihiinna laga saaro hadday meeshu meel rafan tahayna dee xooluhu meesha ay joogaan in marka horeba meesha la degayaa sahan inuu ka horeeyo oo jabadka la degaya ama cusubee la degaya dee inuu noqdo meel geelu habeenkii markuu ugu horeeya ee luxuska yahay habeenkoo dhan waa socdaa marka dambe hal waliba meel fadhiisataa meesha ay fadhiisanayso hadday dhagax iyo rafan tahay geelu habeenkoo dhan waa wareegaya lagumana nagaan karo meesha haddaan digada laga gubin haddaan howlo badan oo la wada leeyahay baa jira marka kuwaasa annaka nala weyn kuwaasaana mudnaanta kale awood qaybsi iyo annaku kan iyo kan aan yeelano ugu dambeyntii haddaynu eegno bal maxaad ugu baaqi lahayd guud ahaan Soomaalida iyo dadka reer Somaliland gaar ahaan dadka Khaatumo dee waa kala horeeyana horta dadka Khaatumo waxaan ugu baaqi lahaa danteena ku jirta nabad iyo xasilooni iyo ummadaasu salka dhulka inay dhigto wax lagu doorto wada hadalka Somaliland anigu ma arko Puntlandna kama filayo inay nasteex ahaan ugu dadaalaysa dadka inuu isu yimaado oo wada tashado oo danahooda ay ka hadlaan xamarna teedaaba wadaadkii muxuu yidhi teeday cuslaysay maxaan tarinay inay cawday taa xamarna saasaan odhan lahaa marka haddii reer Khaatumo kow waxaan odhan lahaa waray wada hadalladaas inta badaniba hadda waa taageersan tahay in loo dhammaado in taladeeda iyo ka qaybgalkeedana loo yimaado oo laga qayb galo wixii tale ee loo baahan yahay ta Somaliland dadka reer Somaliland waxaan odhan lahaa war ilaah baa iskeen baday labada maamulna hawshan waa wadaan ilaah sidaanu xawligii aanu rabnay kuma soconno waxyaalo badan oo naga carqaladeeyo dib u dhac u keenayna waa jiraan qaarkoodna haddayba nahayaan oo arrimahan doorashada waxaan odhan lahaa dadka Somalilandna waa la isu baahan yahay axsaabta iyo waxgaradka dhulkan inay arrintan taageeraan oo xitaa hadday dowladda iyo maamulku yara gaabiyaan inay culays ku saaraan pressure hawshatan inay la dedejiyo ma aha dedeji aan ku salaysnayn dee wixii oo la lafaguray oo aada looga fakiray laakiin in labada la isku daro oo wax suganna lagu hirto laakiin waqti badanna ta Soomaaliyeedna waxaan odhan lahaa warbal shashablana lagu dayo warbal xamar iyo koonfur iyo kaaba hadda dhibaatada ka taagan galmudug gudaheeda galmudug iyo Puntland muxuu ahaa gobolada hoose ama kuwa Jubbooyinka ha noqoto ama kuwa Bay iyo Bakool iyo haato hawlo badan baa yaala weli dastuurku suu sheegayo iyo doorka ay yeelanayaan goboladaas iyo dawladda dhexe xiriirkooda iyo wada shaqayntooda wax cadna ma aha dawlad dhexe oo dadka ku khasbi kartaa waxa iyadu rabtana meesha ma ay taalo waxaan oran lahaa bal koonfurna intay annaka noo gacan haadin lahaayeen warbal gacmo geel jiro hoos baa loo dhaqaay bal idinku bal marka hore isu taga wax isla soo meel dhiga bal annana sidaas la eg baanu yeelaynaa waxaan ku dadaalaynaa waxaan isla ogolahay inaan wada dhisano waxaan rajaynayaa in dadka dhulkan u dhashay marka waqooyiga u dhashay ayahooda ay ka taliyaan oo koonfurta ay u arki karaan iyo Soomaaliya waqtigan aynu joogno German iyo Faransiis inkastoo hadda dhibaato ka jirto Ingiriiska uu leeyahay waa ka baxaynaa
laakiin Germany iyo Faransiis iyo Ingiriis baa dani khasabtay dowladahaasuna muddo 200-300 oo sano intaa waa dagaalamayeen haddana waxay arkeen iyakan isku af ahayn isku dhaqan ahayn oo dowlado waaweyn oo adduunka soo xukumi jiray yay dani baday inay suuq wada samaystaan dhaqaale inay siyaasad ku hirtaan inay dowladay wada leeyihiin dhistaan warinako Soomaali dhagamadow meeshan waxaynu nahay xaalkeena meeshu marayo anigu waxaan oran lahaa baltaana in loo dhiifoonaado oo degdegii hore iyo isdhiibka hore inay dib u dhicin darsiga laga faa'iideysto aad iyo aad ayaa uu u mahadsan yahay madaxweynaha maamulka Khaatimo Cali Khaliif Galeydh oo barnaamijkan si hawliyar noo aqbalay isla markaana waqtina siiyay toddobaadka iyo barnaamijkeennii milicsiga siyaasiga oo ka baxa telefishinka caalamiga Universal intaasi ayaan ku soo gabagaynay aad iyo aad ayaan mahadsantahay.